السلام عليكم كسو دوادا قصدان ku cibro qaadashada mudan oo dhex martay hooyo iyo wiilkeeda hooyadani waxa ay ka shaqeysaa dhardhaqid kadib markii ay dhaqdo waxay u geeni jirtay dadkii ay u dhaqday dabadeedna waxay ka soo qaadi jirtay dhar kale oo wasaqaysan kadibna waa ay dhaqi jirtay sidaasayna lacag ku heli jirtay dhibkaas dhan hooyadu waxay u mari jirtay wiil yar ay dhashay markii ay timaado guriga waxay wiilkeeda siin jirtay cunno kadib waxay ku oran jirtay ma ku kordhiya cunnada waxa uu ku oran jiray haa kadib waxay aadi jirtay shaqadeeda laakiin hooyadu waxay ahayd mid u soo noqoto wiilkeeda xilliga qadada wayna siin jirtay cunnada iyadoo waxba cunin sidaasna waa ay ku faraxsaneed in iyadoo gaajeysan uu wiilkeedu u dhargo markii uu weynaaday wiilkii hooyadii ayaa weydiisay ma ku kordhiya cunnada maanta ilama qadeynaysid miya hooyo wiilkii ayaa ku yiri maya waa uuna ka tagay hooyadiis waxa uu ka jeclaaday inuu la soo ciyaaro asxaabtiisa ahmiyadna ma uusan siin inuu la joogo hooyadiisa iyada kaligeeda ayuuna ugu soo tagay guriga sidoo kale waxa uu noqday mid ka jecel hooyadiisa shaqada uu aado laakiin wiilkii shaqadii uu uga caasiyay hooyadiisa ayaa waxa dhacday in mar waliba uu ku qaylin jiray maamulihii oo uu canaanin jiray markii la gaaray maalinkii ciida hooyadu waxay bilowday inay qurxiso guriga kadib waxay wacday wiilkeeda waxayna ku tiri ma ii imaani hooyo si aan farxadda ciida kuula farxo hooyo wiilkii ayaa ku yiri maya hooyo kuma imaan karo waxaan ku jiraa mashquul hooyadii iyadoo murugaysan hadalkii uu ku yiri ayay ku tiri haye hooyo mid kamid ah saaxiibadiisa oo isla shaqayn jireen ayaa ku yiri maanta waxaan aadayaa hooyaday si aan ugu qayb qaato farxadda ciida kadib wiilkii ayaa soo xasuustay sida ay hooyadii ay u xanaaneyn jirtay iyo in mar waliba ay shaqada ugu soo tagi jirtay si ay cunno u siiso isaga kadib wuxuu aaday guriga hooyadiisana waxa uu noqday wiil baari ah hooyadii ayaa aad ugu faraxday wiilkeeda hadaba qisadan waxay mudan tahay in lagu cibro qaato oo waalidkana baari loo noqdo xadiis laga warinayo suubaneena Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo ka wariyay ibn Abbas waxa uu yiri aljannatu tahta aqdaami al-ummahat oo micnihiisu yahay jannadu waxay ku jirtaa lugaha hooyooyinkiina hoostood oo loola jeedo jannada oo dhan waxa ka xigto hadii aad muslim tahay in aad hooyada u baarinimo sameyso hooyada daryeel sidoo kale aabahaaga daryeel hadii aad jannadoon tahay fadlan la wada qisadan asxaabtaada si ay ugu cibro qaataan waalidkooduna ay baari ugu noqdaan sidoo kale adiga daawadanaya qisadan like saar sidoo kale hadii aad jeceshahay qisooyinka fadlan subscribe saaro channelka gambaleelkana furo si muuqaal waliba aan soo gelino ku soo gaaro waa anigu Zaki Maxamuud oo idin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله على الأحزان الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله تذيب ترح الحمد لله على الأفراح الحمد لله على الأحزان الحمد لله تزيد فرح تزيد ترح الحمد لله تزيد فرح الحمد لله على الإسلام أكبر نعمة من الهادي الحمد لله أمن سلام تنام فيها رب العالمين.